السلام عليكم ورحمة الله. waayadii hore markii ay dawladdu rabto inay qof ay raadinayso basaasto waxaa dabageli jiray basaas la socda dhaqdhaqaaqiisa iyo meelaha uu u badan yahay laakiin teknoolajiyada maanta ayaa waxay sahashay in qofka la dabageli karo oo la socon karo dhaqdhaqaaqiisa oo dhan qofkaasi xataa hadduu waddan kala joogo ayaa cidda basaasaysa oo kumanaan kiiloomitir masaafo ay isu jiraan ay ogaan kartaa meesha uu joogo waxa uu ku hadlayana dhageysan karta oo xataa duubi karta muuqaalkiisa arrintan ayaa waxaa sahlay wax loogu yeero spyware oo ah software lagu socon karo waxa uu qofku samaynayo oo haddii spyware lagu shubo mobilka waxa uu awood u yeelanayaa qofkii xukumayay spyware-ka inuu akhriyo fariimaha uu qofkaasi dirayay oo uu la socon karo cidda uu wacayo passwordadiisana ogaan kara iyo weliba meesha uu joogo awoodna u siin karta inuu makarafoonka telefoonka furo oo uu duubo waxa uu qofkaasi ku hadlayo iyo dadka ka agdhowba iyo weliba kaamirada telefoonka qofka oo aan ogeyn sawirro iyo fiidiyoo laga qaadi karo sanadii 2016 ayaa nin mucaarad ah oo u dhashay waddanka Imaaraadka waxaa loo soo diray fariin ahayd inuu gujiyo halkan si uu u arko sawirrada dad lagu dhibaateynayay xabsiyada waddankaas ma uusan ku dhufan website-kii fariinta ku qornaa wuxuuna ka shakiyay inay ahayd xeelad la rabay in isaga lagu basaaso magaca website-kii ayaa wuxuu u diray shay baara hawlgallada sharci darrada ee internetka markii la baaray fariinta ayaa waxaa la soo ogaaday inay ahayd spyware oo haddii uu gujin lahaa website-ka fariinta ku jirtay ay cidda soo dirtay fariintaas awood u yeelan lahaayeen in wax kasta uu telefoonkiisa ka sameeyo ay la socdaan software-kan sida sirta ah uga dhex shaqeeya mobilada ayaa waxa loo yaqaan Pegasus waxaana sameeyay shirkad la dhaho NSA Group shirkadaas ayaa waxay ka iibisay dawlado fara badan dawladahaas ayaa waxay awood u yeesheen inay jabsadaan mobilada fara badan oo iska leeyihiin dad iyaga mucaarad ku ah ama ay shakiga qabeen waxaa la soo helay macluumaadka kumanaan telefoon ah oo beegsaday barnaamijkan sirdoonka ah oo ay ku jiraan madax dawladeed madaxda la birtilmaameedsaday ayaa waxa ka mid ahaa madaxweynaha Faransiiska iyo badana wasiirada Faransiiska ra'iisul wasaaraha Pakistan madaxweynaha Koonfur Afrika iyo madaxweynaha Ciraaq waxa kale oo dawladaha software-kan laga gaday u adeegsanayeen inay ku basaasaan saxafiyiinta iyo mucaaradka dawladda wadamada isticmaalaya barnaamijkan ayaa waxa ka mid ahaa India, Morocco, Imaaraadka, Togo iyo Rwanda shirkadda barnaamijka samaysay ayaa waxa laga soo xigtay in 36 dawladood ay isticmaalaan software-kaas wadamada Afrikaanka ee aadka u isticmaalaya barnaamijkan ayaa waxa ka mid ah Rwanda oo la sheegay inay la socotay dhaqdhaqaaqa 3600 oo telefoon oo badankooda iska lahaayeen siyaasiyiin ama dad ay ka shakisan tahay dawladda Rwanda magacyada ka soo muuqday liiska dadka ay Rwanda basaasayso ayaa waxa ka mid ah madaxweynaha Koonfur Afrika xiriirka u dhaxeeya Rwanda iyo South Africa ayaa xumaa tan iyo 2014 markii lagu dilay South Africa Patrick Karegeya madaxii hore ee hay'adda sirdoonka Rwanda oo mucaarad ku noqday madaxweyne Kagame oo markaa kadib waxa uu u cararay waddanka Koonfur Afrika laakiin hoteelkii uu ka deganaa Johannesburg ayaa lagu dhex dilay taasoo keentay in xiriirka labada dawladood uu xumaado oo ay markii dambe safiirada kala qaateen software-kan lagu basaasayo mobilada ayaa mararka qaarkood xataa qofkoon ogeyn uu awood u leeyahay inuu dhex galo mobilkiisa taasna waxaa sahashay daldaloolo amni oo ay leeyihiin mobilada iPhone-ka iyo Android-kaba shirkadaha Google iyo Apple oo iska leh software-radaas ayaa sanad walba lacag malaayiin dollar ah siiya qofka soo hela daldaloolo amni oo software-rada shirkadahaasi leeyihiin Google ayaa 2020 ku dhawaad 7 milyan oo dollar siisay baarayaal soo helay daldaloolo amni oo ay software-rada Google leeyihiin laakiin shirkadaha ka shaqeeya basaasnimada telefoonada ayaa iyaguna lacag aad u fara badan siiya qofkii awood u yeeshay inuu jabsado mobilada iyo software-rada kala gedisan marka baarayaasha qaarkood ayaa waxay ka gadaan shirkadahaas xogta lagu jabsanayo telefoonada oo kaga qaata lacag ka badan waxa ay shirkadaha Google iyo Apple bixinayeen dawladaha teknoolajiyada xooga saara sida Mareykanka ayaan u baahnayn inay shirkado wax ka gataan oo iyaga ayaa samaystay barnaamijyo ay ku basaasi karaan mobilada iyo kombiyuutarada si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa dadka ay danaynayaan iyadoo Edward Snowden oo shaqayn jiray hay'adda sirdoonka Mareykanka uu soo bandhigay xogo sheegay in Mareykanku uu dawladaha caalamka badankood uu xogahooda internetka iyo telefoonadooda uu aruuriyo oo uu keydiyo barnaamijka Pegasus ayaa waxa ka faa'iideystay dawladaha aan awood u lahayn inay sameeyaan software-radan iyadoo shirkadda samaysa ay malaayiin dollar uga qaadato intaas ayaa noogu jooga barnaamijkii maanta intii aan mar dambe kulmi doono nabadgelyo. Assalaamu calaykum.